بسم الله magacaygu waa Cabdilcasiis Ciise Cali Maxamed waxaan ka socdaa macadka farsamada gacanta ee Hana Academy waxaan ka mid ahay ardaydii fursadii u heshay inay ka soo qayb galaan STEM Innovation Lab kaasoo socday muddo isbuuc ah kaasoo aan ku soo bandhigay projectyo kala duwan kaasoo ay qaban qaabinaysay shirweynaha Somali STEM Summit. Bismillah magacaygu waa Cabdulla Daahir waxaan tababar loo isbuuc ah aan soo qaadanay project oo lagu magacaabo Soil Moisture and Water Irrigation kaasoo maxaa la yiraahdaa uun falanqeynaynay oo qabto iyo maxaa la yiraahdaa waxyaabaha la adeegsanayo hadda waxaan ka hadli doonaa faa'iidada uu leedahay bulshada Soomaaliyeed soil moisture and irrigation ka ilaa waxaan soo qaadanay 4 qaybood oo faa'iido ugu waaweyn ugu horeen faa'iidada ugu weyn waxay u leedahay beeraleyda waxay faa'iido u leedahay wax soo saar badan iyo talag dayo leh iyo maxaa la khasaareeyay tan kalena waxay faa'iidada u leedahay bulshada Soomaaliyeed biyaha la keediyo iyo ka hortagga abaareed iyo maxaa la cuntada abnigeedu safe ah iyo waxaan faa'iidada kale u leedahay waxa waaye dhaqaalaha dalka horumarka dhaqaalaha iyo shaqo abuurka iyo maxaa la yiraahdaa dhoofinta dalka tayo leh dhanka kale waxay faa'iido u leedahay waxa waaye deegaanka waxay faa'iido u leedahay waxa waaye biyaha la keediyo iyo maxaa la yiraahdaa carrada oo burburitaankeeda ka hortagto soil irrigation and water taas faa'iidada waaye waxaan hadda ku xoogi doonaa talooyinka mustaqbalka ee bulshada Soomaaliya u leedahay كو دولة هي إنجو إن فنجريان محل مشروعان كاسو محل هذا فائدة وين بلارن أولى هاي وقف كستو عم عد كستو بيرتا أو محل هذا وح كستو لبيرتو لعنه وحنقله محل هذا قولت عليه لهاي جامعة إن محل هذا مدهان لو ديجو أرضية محل هذا دولات كان أي كانوا لو درو محل هذا علمي كان لحريرة beerista maxaa la radaa qaabkan tiknoolajiyada cusub si loogu hormaro waxay kale faa'iido u leedahay dhalinyarada waxay u sameynaysaa shaqo abuur kala duwan kaasoo iyadoo looga faa'iideysanayo maxaa la radaa habka cusub ee tiknoolajiyada oo quseeya maxaa la radaa soil moisture-ka and irrigation system-ka gunaanadka waxaan ku soo gunaanadu lahay in la sameeyo horta soil moisture wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu hormarsan wadan kasta wuxuu leeyahay wuxuu ka hormaraa tiknoolajiyada maxaa la yiraahdaa horumarkooda oo sareeyo maxaa la yiraahdaa wadankan uu hormaraa waxaan hadda sameyn doonaa tusaalayaal qaabka u shaqeeyo maxaa la yiraahdaa projectigan anoo maxaa la yiraahdaa aan adeegsanayo hadda waxaan gacanta ku hayaa sensorka wuxuu tilmaamayaa qoyaanka maxaa la yiraahdaa carrada inkastoo oo maxaa la yiraahdaa hadda aan wadno carro qaleel meeshan ku wadnaa carrada hadda sensorkan hadaan gelino leefalo kala duwan oo leeyahay ilaa 3 leefal kaasoo ku asteysan midabyada tusaale midabkan gaduudka kale wuxuu sheegayaa markii aan lahayn carrada wax biyo aan ku jirin oo 0 level way wax biyo ma lahan carrada isla markiiba sensorka ayaa wuxuu fariin u dirayaa daatada xogta oo wuxuu dirayaa in maxaa la yiraahdaa automatic la bambi gareeyo oo waraabkaas maxaa la beerta gaaro colorkan oo maxaa la yiraahdaa jaalaha asina wuxuu tilmaamayaa levelka biyaha dhaxdhaxaadka inuu yahay iyo maxaa la yiraahdaa tilmaamayaa color kan green kan wuxuu tilmaamaa waxa waaye waaba buuxaaba oo maxaa la yiraahdaa heerku u dambeeyay waay waraabka in ku filan oo haysta beertaas haddana iyadoo tijaabo ahaan waxaan sameyn doonaa tusaale sensorka inta daan gelino data system wuxuu akhri doonaa carrada levelka biyaha inta ku jiro kale oo sheega percentage oo leeyahay percentage oo lagu ogaa karo in maxaa la yiraahdaa carradan ayna lahayn wax biyo waxa ugu badan 25% adii sensorka aan galiyo 25% data ay soo qorto waxay ka dhigan tahay in meeshan wax oo biyo aan ku jirin oo 0 level ah waxaana daarmi doono hadda waad arkaysaa sensorka daan galiyo waxa la yiraahdaa calaamadan guduudka aad daaran calaamadan guduudku waxay sheegaysaa maxaa la yiraahdaa wax biyo ma lahan carradan waa eber waa 0 level waay waxaan ku shubi doonaa air biyo ku shubi doonaa si aan maxaa la yiraahdaa ugu shaqeysiyo tusaale hadda waan geliyay
markii hore wuxuu ahaay 21 oo ahaay 25 oo ka hooseeyay 25 waxaan dhahnay levelku waaba ku hooseeya waa zero level waxa daarmisay calaamada gaduudka daarayo wax biyo ma lahaynba oo maxaa la caradaas biyo ma lahayn hadda waxa daarmay colorkii jaalaha daarmay kaasoo sheegay level dhaxdhaxaad biyo ku jiro hadii aan maxaa la yiraahdaa astaanta kale colorka gaduudka maxaa la colorka greenka daabiyan ku wada buuxino hadda waan gelinay markii u dambeysay oo aan sameeynay sensorka markaan gelinay astaanta colorka oo jaalaha noo daarneed markaan wada gelino colorka waxaan daarmaayo colorkan cagaarka oo waa full waayaba uma baahno waxa waraabka geedkaas ama beertaas waraab ku filan waa helay ma fahantay marka waxaan leeyahay bulshada ha laga faa'iideysto maxaa la programkan siiba qaasatan beeraleyda aad u anfaca marka intaas ku soo gabagabeeyay insha Allah